السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka koobaad iyo marka labaadba kusoo dhawaada janalkii mudane xuseen. caawa janalka waxay noogu martiya baashkaankiinii hore madaxweynihiinii hore gobolka Jaankiri ardayda reer Djibouti waqti dheer ayuu madaxweynaha oo la soo qaatay ardayda jihana uu sameeyay wado fiican oo qaar badan oo jaamacadahooga iyo dhinac walba naga warhaynayay. waa mahadsantahay baan leenahay shaqada dheer ee soo qabatay. kusoo dhawow caawa janalkii mudane xuseen oo marti noogu tahay boqolkiiba boqol. soo dhawow baan ku leenahay mudane xasan cigaal axmed. kusoo dhawow marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba adigoo naga raaliya. walaalkii xuseen aad iyo aad baan u dhowahay, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay sida sharafta leh ee aad igu soo marti qaaday channelka. aad iyo aad baan u dhowahay walaalkay, anoo caawa la joogo walaalkii xuseen kuna sugan gurigiisa, sida gurigiisa iyo channelkiisa bay igu soo dhaweeyey. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. waan soo dhawahay walaalkay. waa mahadsantahay intaad waqtigaaga aadna siisay aadka u qaaligaa. haddaan sii gudagallo su-aalaheena sii gudagallo, su-aasha u horeysa waxay ku odhanaysaa taariikh nololeedkaagii bal nooga waran. maasha allah xuseen, maqaaxidu caawa aad bay u shidan tahay gabadha. su-aalo sidaa ina la iska weydiiyeyna kamaan soo fikirinba. bal haddii aan su-aashaada ugu horeysa aan ka jawaabo, horta run ahaantii qof taariikh sidaa usii leh maihi. insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa in aan maalin maalmaha ka mid ah aan insha allahu tacala wax dhaxal u ah ummadda soomaaliyeed dhammaantood insha allahu tacala naga hadho. laakiin iminka ahaan weli arday baan nahay. insha allahu tacala inuu ilaahay tacliinteena nagu guuleeyana insha allahu tacala waan rajeynaynaa. taariikh nololeedkayga haddii aan kaaga soo hadlo, sidaad usoo sheegtay horta magacaygu xasan cigaal axmed, waxaan ahay arday reer Djibouti oo ku nool waddanka Turkiga. dhammaan maxaa la dhahdaa tacliintaydii waxaan kusoo bartay ama waxaan wax kasoo bartay waddanka Djibouti, waddankayga hooyo. maxaa la dhahaa dugsigii hoose dhexe iyo sareba waxaan kasoo bartay caasimada Djibouti. jaamacaddan waxaan kasoo dhigtay jaamacadda jamhuuriyadda Djibouti. maasha allah 2014 ayaan jaamacadda soo galay. 2017 waan dhameeyey jaamacadda. 2017 waxaan noqday ardayda maxaa la dhahdaa ugu horeysa jaamacadda Djibouti. waxaanan fursad u helay in aan helo scholarship amba books u yaqaanaan ardaydu, in aan ku imaado waddanka Turkiga. 2017 baan imid waddanka Turkiga, gaar ahaan gobolka Jaankiri. ilaa haddana xuseeno waan ka caana dhamana wadankii Turkiga. maasha allah taariikh fiican baad leedahay, maadaama taariikhdaadu tii aqooneed ay tahay oo nin aqoonta un soo eryanaya tahay. maasha allah taariikh fiican baad leedahay. su-aasha saddexaad waxay ku leedahay intaad noolayd waad maadaama weli nin dhalinyar aad tahay, intii aad soo noolayd wixii kugu la yaabka badnaa eed la kulanto noloshaada muxuu ahaa? maasha allah xuseeno, su-aal bacaaw su-aasha ka dambeysa kusii dhiibasa. marka waa su-aal aad iyo aad muhiim ah. run ahaantii ilaa iminka intaan noolahay ama ilaahay cimrigayga ugu sameeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin, wax aan odhan karo aad baan ugula yaabay. waa markii ugu horreysay ee aan imid waddanka Turkiga, gaar ahaan gobolka Jaankiri. annaga iyo maxaa la dhahdaa walaalihiina Turkida markii ugu horreysay aan isla kulannay. su-aashii ugu horreysay ayna weydiiyeen waxay ahayd waddankiina biyo ma jiraan? waa yaabtaas, waa yaabka yaabkiis. yani dad dhan oo ilbaxa oo lagu leeyahay waa waddan ilbaxa, inuu ku idhaahdo waddankaaga biyo ma jiraan waxaad la yaabtid. iyo inuu qofkii kuu yimaado oo uu ku idhaahdo jirkaaga uu taataabto madowgu ma uskag baa uu ku idhaahdo uu yaabo saa kugu daawado. dad cadun baa arkan malayn dad baduma. markaa run ahaantii waa waxyaabaha aad iga yaabiyey. laakiin iminka inay barteen baan u maleeyaa. sidii hore way dhaamaan oo ilaa hadda wixii iga yaabiyey waxaabu ahaa inuu laga idhaahdo waddankaaga biyo ma jiraan. su-aasha xigta waxay ku leedahay ma jiraan waxaad samayso ood rabto inaad iska dayso? ka daroo dibi dhab. niyo su-aalba su-aasha ka dambeysay yaa hoos guntaad usii galaysaa. wala sii dhaadhacaya ceelka. waa sii dhaadhacaysa.
waan run ahaantii horta su-aashaas haddii cagsigeyga ahaan lahayd oo la odhan lahaa wax aad samayn aad rabto inaad samaysid ma jirtaa taa waa laga jawaabi kari lahaa laakiin run ahaantii iminka aniga wax aan sameeyo aan rabo inaan iska daayo run ahaantii taa iminka ma jirtaan u malayn kara ma jirto waa maasan tahay mudane baashkan ama madaxweynahaygii hore ardayda reer Jabuuti gobolka Jaankari su-aalo way sii socdaan intii aad madaxda ahayd ama mas-uulka ardayda Jaankari ahayd wixii kugu dhibta badnaa ee soo mara ama siye kula soo darasa muxuu ahaa maxaad is leedahay wax faa'iida way kaa soo galeenoo dhibkii waad ku iloobi kartaa soo maray maasha allah run ahaantii waa su-aal aad iyo aad u qiimo leh su-aasha xuseen haddii aan kaaga jawaabo horta gobolka Jaankari muddo ku dhow 2 sano iyo badh yaan kasoo ahaa bashkan ama guddoomiyaha ardayda sida loo yaqaano badanka guddoomiyaha ardayda reer Jabuuti ku nool gobolka maxaa la dhahdaa Jaankari waxyaabihii iigu adkaa amba iigu dhigta badnaa waxay ahayd xuseenow horta wax badan oo iigu dhib badaana muu jirin xuseenow run ahaantii wuxuu ahaa waxay ahayd waxyaabo badan aan u samayn jiray ardayda inaan ka caawiyo haddii ay noqoto jaamacad haddii ay noqoto dhakhtar haddii ay noqoto wax kaloo ugu baahdo inaan isgarab istaago marka isgarab istaagga aan isgarab istaagayey ani dhibaato amba igumay ahayn wax culaysa laakiin bilcaks waxay ahayd farxad inaan maanta qof walaalkay ah oo reer Jabuuti ah in aan wax u qabto oo luqadii garanayso sababta saad u garanaysid waddankan Turkiga luqadda aadka looga hadlo 90% waa luqadda Turkiga marka ardayduna badanka markay gobolka yimaadaan luqadda badidoodu may garanay marka waxyaabo dhibaato leh iyagoo dhinaca Turkida naga soo gaadha maahe oo ay Turkidu mar maxaa cunsuriyaan iyo wax sidaaya maahe laakiin wax kale oo dhinaca naga soo gaadhay maxaa la dhahdaa ardayda iga soo gaadhay haba yaraatee ma jirto bilcaks aan kuugu sheegay waxa ii ahayd aniga farxad iyo rayn inaan walaalahay wax ugu qabto haddii aan su-aashaada sii wado aan kasii jawaabo waxaan u malayaa inay su-aashaada ugu dambeysteedu ahayd maxaa faa'iide aad ka heshay run ahaantii wax haba yaraat faa'iido la idhaahdo aad bay u badan tahay aan ka helay ta ugu horeysa waxa weeji in ay maanta ururkii uu sii jiro xuseenow in ay maanta ururkii uu sii socdo oo uu la helo meel la iskugu yimaado meel wax lagu wada qabsan karo meel ardaydu ku shiri karaan la isku caawin karo sababtoo ah maanta waddan ajaaniba aan joognaa beritoole waxaan ku noqon doonaa waddankeeni hooyo marka waddankeeni hooyo ku noqono dad wada tashi leh dad ismaqlaya markii waddankii ay ku laabmaan run ahaantii waddanka developmogiisa horumarkiisa ayaa hore uu sii qaadayaan marka run ahaantii farxadda igu weyn ama faa'iidada igu weyn ee maanta aan dareemo taa ayaa ka mid ah faa'iidooyin kalena way jiraan run ahaantii oo aad ani gaar ahaan ii ah sababtoo ah iminka gobolka Jaankari meelaha ugu badan ee maxaa la dhahdaa la tago amba la aado wax laga qabsado sida jaamacadda shidaarisiga valiliga meelaha oo dhan badanka dadkii way ku wada baranayaan si fiican fursado aniga dhan baa maalintan iqaamada qaadanaya ma meesha kimliga dhigay ayaa meeshan markaas gabadhii weydiiso gabadha dusha sare fadhiistay tiri xasan cigaal ma istaqaanin bay tiri oo markaasaan ka yidhi waa baashkaankeeda ma taqaanaa marka ha si fiican ma aqaanaa bay marka maasha allah aduu fursado fiican iyo barasho dad aad isbarartiin taana waxay ku fududeynaysaa hadhow toole inaad ardaydii wax uga qaban kartid marka alxamdulilah rabbilcaalamiin fursado badan iyo fawaa'iid badan baan ka helnay alxamdulilah rabbilcaalamiin baan leenahay anoo fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan xaggan ka salaamayaa bashkaanka iminka ama guddoomiyaha ardayda gobolka Jaankari iminka ahaan walaalkay Nusrudiin aad iyo aad baan uga salaamaya xaggan boqolkiiba boqol waan salaamaynaa allah xilka u fududeeyaan leenahay ilaahay xilka u fududeydiyo waa nin aad u dadaala nin dadaal badan maasha allah ilaahay inuu isna dadaalkiisa ka abaalmariyo insha allahu tacaala ayaan u rajaynaynaa iyo dhammaan maxaa la dhahaa
ardayda wadan reer Djibouti ee ku nool wadanka Turkiga iyo baashkaankeeni weyn صح anagoo iloobin Dr. Xawaale ما شاء الله waxaan ka salaamay isagana ما شاء الله dhammaantiin ardayda walaalahay iyo ardayda reer Djibouti dhammaantood صح ummadda Soomaaliyeed salaan سلام qaali قالية xagaan uga dirnaa وجنالكي مدن حسين mudane xuseen way dhan tahay barnaamijka qaybtii hore intaas ayuu ku egyahay waxaan guda galaynaa qaybtii labaad oo su'aaluhu way sii socon doonaan baashkaanka caawa meesha waa la isku lafagurayaa qaybta kale la socda ayaan yeelanaa